waxaan ku darayaa marka qodob idinka iyo iyagaba idinka dhaxeeya laakiin ragga xaqiisa u badan taasna waxa weeye qodobo muhiim ah oo ragga dhalinyaradaana aan u qishayo inay maaragtay ka faa'iideystaan waxaan ku tilmaami karnaa baharaat waxa carabiga lagu yiraahdo ama flavors maaragt of love yani jacaylka guriga ayay maaragtay macaaninayaan suugada aan lahayn xawaajka iyo alaabta iyo waxyaalaha lagu dardarin it's not the main thing maaha alaabta mainka ay waa waxyaalo kaleeto content kale waaye laakiin waxaan yaryara lagu daraayo maaragt flavorskaasu macaan bay ka dhigayaan iyo alaabta iyo guriga marka guriguna wuxuu u baahan yahay some flavors buu baahan flavors marka midaan xataa odayaashu way u baahan yihiin inkastoo iyaga iyo islaamahooda dee isku waqti ay ahaayeen oo isku sabrayaan laakiin dhaqanka guud sida guud oo islaamku ina farayo ama dhaqankiisu waa muhiim weeye awalan yani raganimo iyo yani akhyaarnimo in dumarka lagula dhaqmo oo bimacnaa wax badan asal waxa u ah cafis wixii adiga xaaskaaga idinka dhexeey hadda u fiirso xataa xuquuqda aad leedahay waa meher buu noqon karaa waxyaalo kaluu noqon karaa waxaa asal u ah cafiskaa wanaagsan inaad cafiso ka tagtaa wanaagsan oo aadan waxba ka dooran oo waxba ka qaadan hada huwa afdal xataa xaq haddaad ku leedahay waxaana u asala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aayadda marka la kala tegayo وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هيه محاك ضمية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير gabadha haddii aad guursataan buu yidhi waad furtaan idinkoon la aqal gelin meherna aad u magacowdeen waxay xaq u leedahay meherka nuskiis 10 kun baad ku heshiiseen oo meher ah waad mehersatay gabadhii lama aqal gelin adigoon la aqal gelin baad kala boodeen waxay leedahay meherka nuskiis markay tegayso ilaa inay cafido mooyaan ama adigu aad cafido sida xaqa la isku leeyahay waa nus laakiin waxaa dhici karta inay tiraahdo nusna kaa qaadan maayo niyo waxba maba aadan helin nin miskiinoo meesha ku jabay baa tahay marka 10kaagiiba iska qaado iyadoo ful ah waxba ha keenin way heli kartaa inay cafido inuu isagu cafiyo waa heli karaa oo yiraahdo 5 baad xaq u leedahay 5ta kalena ku darso waxba mar haddaan ku hadlay kaaba qaadan maayo waataynu wada kulanayo yani danin iyo xaaskiisu isu bannaan yihiin mugta wax kasta dhex mari kara hadal baa dhex maray haasaa waa dhex maray faraka ciyaar baa dhex mari kara wax kasta dhex mari kara almuhim marka inuu yiraahdo isaguna sharafta ka xigo aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatu nikah markaasuu ilaahay wuxuu raaciyay xaq markuu saasi in mid walba uu cafin karo inay u bannaan tahay markaas haddana aayaddu waxay raacisay in cafiskaasu in midkiin cafiyo ay tahay sida taqwada u dhow oo wanaagsan sida taqwada u dhow kee afdal ah labadooda kii cafiya wa an tacfuu aqrabu litaqwa markaasuu ilahay haddana wuxuu ku sii daray walaa tansawu alfadla baynakum war wanaaggii ha ilaawinina idin dhex maray iyo macruufkii ilan shalay waxaa ahaydeen I love you you love me baad isla ahaydeen aad maanta kala boodeen hawjeed jacayl baad isku soo aadeen haddana waa kala boodeen marka jacaylkii ay laawinina shalay jiray iyo wanaaggii idin dhex maray marka gentleness baa laga rabaa ninka dumarku jecel ninka gentlemanka ah waxba ka doon xasan ibn cali radiyallahu anhu ayaa waxa laga sheegaa inuu furiin badnaa bay qisooyinku sheegaan xasan ibn cali ibn abi talib radiyallahu anhu marka gabar buu furay markuu gabadhii furay buu xoolo badan u diray oo tiro badan nin adeegihiisa raggii u adeegi jiray buu lacag badan intuu dhiibay 100 kuna wuxuu yidhi u geey gabadhaas oo tasriixun biixsaan waxaa weeye mutca la yidhaha gabdhaha marka la sii daynayo islaamku wuxuu noo jiday in gabadha la hagaajiyo la sagootiyo qalbigeedii jabay oo furiinka ku jabay waxaa la rabaa in la kabo ujeeda markaa furayso meherkeediina waa siinaysaa maxaa kale ugu daraysaa sagootisna ugu daraysa 5 kun oo kalena waxaad leedahay ama 2 kun oo kale ama kunkaas waxa weeye maaragtay isaguna waa sagootis way saas way rag baa la mari kari laaya
waxay qabtaaba ka badan waxay iga qabtaaba anigaba gurigayga gubtayba qoftaan ee wareerisay waxaysay waxa igu samaysay ya tirsanaya xisaab buu soo dhiganaya halkan buugii qal marka ala kulli xaal nimayo waxa la rabaa khiyaarnimo gabadhii waxay tiri lacag badan weeye laakiin ninkii miyuu ii soo noqonaya ninkii xasan ah miyaan helaya mardam ya isagii ma helayo yani isagii ka go'i kari laadahay laakiin xoolihii bay siisay waxaa kaleetoo ka mid a serviska iyo guriga khidmada yani reeg loo adeego wixii loo qabanayo waxay u baahan yihiin meel hadday u baantay la geeyo waxyaalaha haddii la rabto in loo soo qaado yani waxyaalahaasoo kaleetana yani okay hadalka dumarku akthar min arijaal ragga waxay uga badan yihiin xagga hadalka afkoodu afkay ku nool yihiin macnaa waxaa weeye markaa la hadal xaaska gabdhar badan baa waxay ka ashtakoodaan ninkii ma hadlayo maanta oo dhan shaquu jiraa caaw markuu yimaado tv-gu saa u furaya cashadii waa usoo dhigaya cashada markaa usoo dhigo ya waaba sii khuurinaya waa sii socda goormaan wada hadlaynaa marka goor aan la hadlo iyo goor aan wada hadalnaba ma haynaba oo wuxuu ku leeyahay hadal tirada naga daa hadal maxaa loo baahan yahay mashaaka maanta oo b b c miyaan ahay anigu buu leeyahay b b c ma aha qofkan wuxuu u baahan yahay inaad la sheekaysato inaad la fariisato waqti idinka keligiina ah ma ujeedaa aad dhegaysato ay ku dhegaysato adiga aad dhegaysato ayaa loo baahan yahay marka hadlaya akhwaani hadalku lacag idinkuma joogo xaasaskiina la sheekaysta waxay kale u baahan yihiin hadiyadda waxyaalaha flavorska waxaa ka mid ah hadiyadda ya gurigaa soo gelin adoon waxba gacanta ku wadin ya gacanta waxba ku wadin xabad barafuunay xabad keegay xabad shokolaataay ya khaasna gabdhaha dambe shukulaatada iyo waxaasay cunaan soo moogidin ya iyo meelaha dukaamada yaryar ee lasoo maro ya ice creamka iyo hey waxaasoo dhan waa hadiyad weeye marka hadiyad la-aan ha soo gelina guriga tashjiicinta dhiirigelinta hadday wax samayso wanaagsan hadday maarata carruurta wax wanaagsan ku samayso hadday guriga wax wanaagsan ku samayso hadday alaabta wax wanaagsan ku samayso saasaa la rabaa gabdhahana waa laga rabaa maaha ninka keliya ila waataan iri waa mushtarak xayaanahanu waa wax la wadaago gabadha ninkeedu intaasoo dhan buu wax bixinayaa waxbuu masruufayaa waxbuu siinayaa waxbuu keenayaa xeranaysaa hadiyad buu keenayaa tan waa tii sanadkii hore laga tegey miyadaaba goorma laga tegey kan haye barafuunkana waa kanoo kale yaa qaata hay maxaa marka dan waxaan de naga daab marka waxba ha u keenin waxyan keenaba haddii la oranayo wax nafle maaha ama dookhaagu ma fiican haddii la oranayo waxaa la rabaa inay tiraahdo maasha allah wax ka fiicanba lama arag barafuun ka fiican lama arag alaabtan haddii keenta dumarkuna way jecel yihiin hadiyadda dumar raggooda ay u soo gadaan waxay ka jecel yihiin inaad lacagta iyada siiso waxay ka jeceshahay inaad hadiyadda u keento xabadda hadiyadda haddaad adigu waxaad usoo gaday 100 yahay kunna aad siiso waxay ka jeceshahay 100 ragguna waa saas oo kale way jecel yihiin xaaskooda waxay ku xusuustaan oo gabadhu waxaa la rabaa suuqa markay soo marto meelaha soo marto odageeda inay tiraahdo hadiyaddan barafuunkan adaan kuu soo gaday macaawistan adaan kula jeclaaday alaabta yarta adaan kula jeclaaday waxoogadan yarta adaan kula waxyaalahaas waxaa loo baahan yahay oo jeedaa waxaa loo baahan yahay nolosha taqyiir bay u baahanta haddaan maanta oo dhan bariis haddaan cunayn dee bisha dhan haddaan bariis cuno waa daalaynaa marka biiska miyaan la bedeliyahay caaw dhan miyaanu bedeli jirin marka wax walbiina waa saas nolosha bani aadamku iska maluul bani aadamku sidiisaba waxaa loo baahan yahay inaad kolkol bedesho gabadhu sanadkii oo dhan bay waxay ku jirtaa masalan guriga halka caruurta u libis u dhaq u samay ka saar haddana u libis u saar iskuulka u dir ka soo qaad iskuulka gey ka soo qaad cashada samay guriga dhaq ka soo qaad sanadkii dhan haddii intaa ku jirto maalin way kaga baahan tahay inaad tiraahdo haye maanta wax shaqaa ma qabanaysid iskaga soo caruurna ma celcelinaysid bahalkiina ma qabanaysid maxaan kuu sheegay ya waxna ma karinaysid ina soo kaxayna keen aniga adiga le waay banaanka le waay banaankan u bixin keligeen aniga adiga le waay banaankan u bixin ma ujeedaa kolkolka saasaa loo baahan yahay kolkolka qaarkood nolosha inaad bedesho fasax yar inaad qaadato walow 2 beri 3 beri 5 beri usbuuc hataa aado waxyaalahaas waa tagyiir waa loo baahan yahay inaa marmar adiga iyadoo meelihiina iska soo ciyaartaan meelihiina iska soo maarata cashaysaan meelihiina inaad maarata iska soo tartantaan ilaa safartii markii lagu jiray nabiga calaysaan xaaskiisa uu la tartamay waxaa tagyiir fleefar baa gelina nolosha yaa caaisha la tartamaya nabiga xul caaisha ayaan tartanaa aniga yalla balkana ciidanka sii socda idinna waa tartamaynaa yaa marka waxaa oranaysa anuu nin gentleman anahay ma ahad waxaa cayaarta naga dhaaf caruur miyaan nahay anagu ya noo keeni wax yaa caruur miyaan protection oo nabiga calaysaan caruur baa markuu xaaskiisa la ordaayey markuu cuntada afka ugu gurayey markay iyadu maaragtay ciidda isaa korkiisa u marinaysa isna u marinayey saabuunta markay korkiisa marinaysa isna uu saabuunta ka qaadayey oo ay wada qubaysanayeen yaa ma jira qof xaaskiisa marna la qubaystay keligeed iyo wada qubaysteen waxaa laga yaabaa nina inaan la soo helin
maca daalika nebigu alay slam xaasaskiisa ula qubaysan jire marbay musqushooda geli jireen oo biyaha wada qubaysan jireen oo isugu shubi jireen oo saabuunta isu marin jireen ma ujeeda express love bay ka mid tahay iyo protection xaaskaaga inaad ilaaliso inaad difaacdo inaad maaragtay sharafteeda iyo magaceeda iyo maqnaansheeda difaacdo sidoo kale loofkaaga inaad u sheegto jacaylkaaga iyo qadarintaada inaad u sheegto haddaad ka xishoonayso afka inaad soo mariso wallahi anigu xaaskayga waa jeclahay laakiin isbihinbihinta ma aqaan haddaad tiraa isbihinbihinta iyo maaragtay loofyo iyo waxaas iyo ku jeclahay iyo waxaas caruuraha ku hadle laakiin anigu waan jeclahay xaaskayga inaan jeclahay shaki kama jiro ya waayo u sheeg haddaad jeceshahay u sheeg ya waxaa kaloo ka mid ah illegansiga yani xaragada xaaskaaga u xaragood gabadha adiguna ninkaaga u xaragood gabdhaha galabta waa u sheegayay waxaan iri ninkii arkay xaaskiisa oo aroos u labisanaysa mase wuxuu mooday qof kaleeto wuu garan kari waayey wuxuu leeyahay qoftaan islaantaan sidaan u labisan oo sidaan u mashashuursan yay tahay markaa qof kale xaafadda soo siyaaratu u maleeyey ma ujeed base waa iyadii ilan isagu had iyo jeer wuxuu ku arkaa marada umbaaliga baatiga ayo guriga ay ku joogto keliya inay maaragtay hortiisa un weligiis iyada oo alaab maaragtay sida dayaxa oo kaleeta sida tamuyan arag marka wuxuu yidhi alaabtan annaga maana loo gashado dadka loo gashanayo marka isagana sidaasoo kale gabadhu ka rabtaa dee siduu ninku saa uga rabo inay cilaansato barafuusato adduun quruxsato isagana saasaa laga rabaa anigood mar baa gabar iisoo qortay waxay tiri nigay muddaan wada joognay waxaan ku kala tegayno oo aan noloshii la xambaari kari la'ahay waxa weeye ninkii inuu qubaysto ma rabo markuu guriga habeenkii markuu yimaado inuu qubaysto ma rabo waxaa u daran uun xaajadiisa inuu guto si kastaba ha ku guto khalaas dareen kale iyo cid kaleeto uu ilaalinayo ma jirto haba yaraa bal xataa cadaygii inuu si fiican u cadaydo habeenkii hadduu yimaado ayaan laga karahayn dabcan qofka hadduu saaka cadayday cadayga inuu mar kale ku celiyo u baahan yahay khaasatan habeenkii markuu reerkiisa iyo xaaskiisa iyo la kulmay gabadha laftigeeda u baahan tahay lan kulankan waxaa la rabaa inaan dadku kala cararin oo qofku wax raa'ixa xun uyan kaa urin gabadhuna aanay ninkeeda raa'ixa xun ka dareemin ninkuna aanu xaaskiisa raa'ixa xun ama afkeeda ama meel kale wax kale ka soo baxda aanu ka dareemin si aan loo kala anfariirin waayo waxyaalahaas anfariir bay keenayaan nacitaan bay keenayaan walow uu qalbiga maaragtay la qarsado ama maaragtay la isku khasbo marka waa in nimayaho xaragooda saabuun iyo shaambo iyo adduunka way buuxiyeen maanta marka waa in maaragtay alaabtaas la isticmaalo